mid ka mid ah libaaxyada lagu xanaaneeyo beerta libaaxyada oo uu iska leeyahay siyaasi cali maxamed waran cadde oo habeennimadii xalay ahaa baxsaday isla markaana dhaawac weyn u geystay haweeney lagu magacaabo Caasha Maxamed Shire kana soo jeeda qoomiyadda Oromada ee dalka Itoobiya ayaa howlgallo joogto ah oo ay habeennimadii xalay ay sameeyeen ciidamada booliiska Somaliland waxa ay saaka baarashantii iyo barkii subaxnimo ay ku guuleysteen inay dilaan libaaxii baxsadka ahaa ee dhaawac geystay hoggaanka birmadka ee ciidanka booliiska Somaliland gaanshaale sare Cabdi Axmed Tiir oo hogaaminayay ciidankaasi dilay libaaxa ayaa waxa uu ka waramay howlgalkaasi ay ku soo qabteen libaaxa kuna dileen raxiim xalay 7 barkii markay ahayd baan loo soo sheegay baalkaasi inuu soo dhacay gabadhna wax yeelay muddo 7 mirir gudahooda ayaan ku soo gaarnay goobtii ilaa xalay toowan ku jiray baadidoonkiisa insha Allah taala taliya ciidankuna waajibkii buu nasiiyay ciidannimo raadiyahana uu ka sheegay idaacadda shantii barkii subaxnimo ayaanu baalkii helay inkastoo deena soo hujuumay haddana waanu ka xoog roonaanay baalkaas sidaas ayuu ku dhintay waana shaqadii caadiga ahayd ee ciidanku qaban lahaa qayb kamid ah oo dee waliba yar ma aha wax dee weyn ma aha waa baal xayawaan oo soo dhacay oo shacabku ka badbaadinay waana shaqadii aanu shacabka u haynay weeyaan maya waxa la dagaalamay ciidan tababaran wax dhibaato anaga nooma keenin dhinaca kale qaar kamid ah dadweynihii goobjoog oo ahaa markii uu libaaxaasi ka baxsanayay goobta lagu xanaaneeyo ayaa warbaahinta la hadlay gabadha marwadii wax ka soo baxday xamaamka halkan wax yaadhi gaari duqaan ah dabeeto markuu libaaxu soo baxay gaariga duqaanku isku soo loodiyay dabeeto gabadhii buu qabtay dabeeto halkan ayuu la soo galay ciidanka ayaa ka gariday xabad dhaawacay marka xabadii ku dhacdo dhaawac noqday ayuu baxsaday dabeeto sidoo baxsaday godkii uu xalay ku dhacay ayuu laasaa ku jiray godka hadaanu ku dhici lahayn de ummad fara badan u galaafan la yusufa oo la jaara ina waracade meeshan uu libaaxyada ku xareystay waxa weeyaan markasta anaga waxa naga haysata werwer iyo dib iyo dhibaato weyn sanad kastana qof buu cunaa waxaan u aragnaa qofka cunaa waa qof dumar hadaan dumarnahay in raggu ka dhiidhiin lahaa inaanu ka dhiidhiyeen oo dumarkoo kale ay ka dhiidhiyeen marka rag wax weyn nooga qaban lahayn hadii uu maxay ahayd caruur yar yar halkan waa meesh waxay leedahay kubad meel lagu ciyaaro kubadda meesha lagu ciyaar baa noogu ciyaara ciyaalkan haduu ku soo baxo mid ka reebi maayo habeenkii haduu soo sokolo noo soo goosto waxaan ku yiri jaarkii baan la nahay dhibaato weyn baan ku qabnaa dawladda waxaan leenahay aan laga qabto oo maxay ahayd xukuumaddu ha ka taliso oo aan laga raro oo laga fogeeyo baan leenahay hadii kale insha Allah bidmillaahi kariim inaan ka qaxano magaalada ugu qanay maadaama libaax laga qaban kari weydeen ku aytimi habeenkii xalay ama seexan ma suxuran sidii baanu caruurtii may kaadi tagin dadkii waaweynaa booga ku kaajay waa baalkana laga raatay ay garanaysan ninka noogu yeedha xaafadana may timaan baa la yiraahdaa libaaxa walaal habeenku soo baxo waanu baqanaa guriyaha kama soo baxno marka dambe waxa waa been xumun soo bixin dad habeenku soo baxay habeenku aanu soo bixin cidba kala garanayso ta laga saaro xaafadda laga dhex saaro de koolayaal la geey cidla oo jooga bilaadan joogi dareenkayagu waxa weeye baalkan wadnaanu farta ku haynaa magaalada uhdiibu ku jira dhalinyarada habeenkii markay naga baxdo waxaan ku ma seexano marka waxa weeye in laga raro oo xaafadda laga raro oo laga saaro ayaanu doonaynaa haddaan haweenahay hana laga qabto baalkan arrintan ayaa waxay noqonaysaa markii labaad ee ay libaaxyada ku nool beerta lagu xanaaneeyo ee uu leeyahay siyaasi cali maxamed waran cadde ay dhaawac u geystaan dad shacab ah cabdirashiid cabdi wahaab xuseen universal TV Hargeysa.